jacaylku wax xanuun badan oo wax aad u dhib badan wuxuu ku yeelayaa astaamo gaar ah kuwaasoo lagu garan karo inaad qof jeceshahay in kale. waxaa ka mid ah astaamaha lagu garto qofka ku jecel ama qofka adiga aad jeclaato inaad jeceshahay. kala soco astaanta koowaad waxay noqonaysaa xasuus badan, qofka inuu mar kasto niyadda kugu hayo uusan ku iloobi karin xilligaad ka maqan tahay inuu ku xasuusanayo, uu kaa sheekeeyo, uu kugu mashquulayo mar kasto. mid labaad waxa weeye in markaad aragto qof aad jeceshahay ama ku arko in wadnaha uu dhaqaaqo aadna u shaqeeyo cabsi daraadeed, taasoo aan dhihi karno waa jecel dhab ah oo qofkaad u qabto. sidoo kale qofka ku jecel ama aad jeceshahay si rasmi ah kuma fiirin karo ama adiga uma fiirin kartid, waayo mar walbana waxaad fiirisaa marka uu kaa sii jeedo ama uu ku fiiriyaa. wuxuu sidoo kale neceb yahay wax alla waxaad neceb tahay, wuxuuna jecel yahay waxaad jeceshahay, waayo waxaad tahay naftiisa qayb ka mid ah. qofka ku jecel sidoo kale wuxuu jecel yahay markaas inuu ku soo dhawaado marka aad wada joogtaan iyo markaad ka maqantaaba. wuxuu dareemaa dareen sax ah kaasoo muujinaya inuu mar walba uu jecel yahay agtaada. jacaylku waa wax jiro, waxaa la dhowro dhammaantiin wiilal iyo gabdhaba. mahadsanidin.